qolada tuugada ah iyo kuwa saxda ah sida ku kala duwan lahayn yani waa muhiim horta marka ugu horeysa inaad qofka tuuga oo Alibaba ku jira way xagaa saaxiib yaal soo dhawaada muuqaalkan waa muuqaalkii ugu horeeyay ama Alibaba wax hadalno waa muuqaal kamid ah muuqaalada ugu muhiimsan waxyaabaha ugu muhiimsan Alibaba ay tahay qofka inuu yaqaano ama aqoon u leeyahay iska fiiri ay tahay waaye marka meelahan hadda ku tusi doono waa aad u muhiimsan waxyaabaha ku sheegi doono dhigta ee saxda ah furnaada si fiican iska fiiri waa muhiim talaabooyinka ku sheegay hadaa martid waliga lacag laga maqaan karo lacagta cid kale maqaan karto tuugo u dhacis maba waxaan ku kala tusayaa kuwa saxda ah kuwa saxda ah kuwa tuugada iyo kuwa kale ee qiimahayaasha iyo waxyaalo kale aad iyo aad u fara badan anagoo muuqaalka xigana payment diri doono ama qabla alaabta loo dalbado ka samayn doono maanta kaliya tas waxaan rabaa inaan ku soo marka alaab soo jegraysa Alibaba qaabka uu leeyahay midkaas alaabta saxda ah alaabta feerka dhig wax feer gadu wax ku maagay si uu kala ogaatid ayaan doonaa sintiin muuqaalkan meel dheer aan gaarsiiyo ilaa dhamaadka muuqaalkan si daawa Alibaba horta dadka qofba meel ayuu galaa ama waxyaabo gaar ama product gaar ayuu xiiseeyaa inuu iibsado ama uu ku ganacsado maanta waxaan la fiiri doonaa productadaas mid kamid ah ama shuruudaha adiga iyo meelaha la iska fiiriyo ayaan fiiri doonaa productiga markaas aan u soo dooratidba oo ay tahay in aad iska fiirisid tusaale ahaan waxaa soo jengraysay productigi markaas aad u soo jengraysid ama u baartid ama u raadisid isla markaas aad u heshid productigi meelaha dhowr product horta ku soo baxayso ama qiimayaal kala duwan iyo waxaas leh marka hada qiimayaasha hadda meeshaas aan u jeedno waxa waa ilaa 3 qiimo waay qiimayaashan waxyaabaha ay kala yihiin waxay ku xiran tahay tiradan hoos ku qoran oo ay tahay intii aad ka dalbatid waxaan u jeedinaa sawiradan waa sawirada dadka gatay bahalkan meesha u socon waa halkan oo ah verified supplier meesha ku qoran tahay oo calaamada buluugta verified supplier aduusan ahayn qofkaad wax ka gadin haduusan verified supplier uusan ahayn waxba sanadaha uu ku jira fiirinin revenue uu ka sameeyaa fiirinin staff uu leeyahay ama shaqaalaha uu numberska shaqaalaha badan uu haysta fiirinin ma fahant online time rate kiisa fiirinin delivery time rate kiisa fiirinin waxba ka fiirinaaday haduusan verified supplier ahayn haba fiirinin ma fahant yani ha fiirinin marka kule waxa waaye haduu qofkan verified supplier ahayn waa tuug say u badan tahay dadka tuugada ayaa verified ahayn kaliya dadka verifiedska ayaa wax laga gataa isla markaas saacadaha u soo furnay waxa u jeednaa saacadihi oo qiimayaal kala duwan leh kuwa verified iyo kuwa aan verified ahayn intaba wayna dhici kartaa midka verifiedka aan ahayn inay saacadihiisu qaali yihiin laakiin si kastoo u fiican yahay ninkan ama wax fiican tahay la u gadaayo haduusan verified supplier uusan ahayn ninkaas waxba laga qaban karo marka ku leeyahay ninkaas ma aha nin shirkadda ay ku ogtahay shaqadan oo aqoon ku leh shirkadda ma fahant qaab bixinta lacagtana ayadana waxay leedahay process kale marka ayaa ka soo hadli doonaa qaabka productiga loo dalbado laakiin hadda waxa la fiirinaynaa oo kaliya halkan verified supplier markuu shaqada ugu horeyso waxay ka bilaabmaysaa inaad iska fiirisid ma fahanteen waxa fiirinaynaa hadana kabaha dumarka ayaa hadana isla fiirinaynaa oo salahan marka kabada dumar aad sir jigraysid ayagana waxa ku soo baxay intaas oo product oo kala duwan oo nooc kaba salahan kuwa had waa $1 ilaa $5 inta u dhaxayso price kan waa kaliya simple price iyo real price aan la kala qiimaha meesha u jeedid waxa la kala simple price iyo real price tusaalahan qiimahan meesha ku qoran inuu san ahayn laga yeeshay qiimihiisa saxda waxaan intaas sidaas sameeyay dadka verified supplierska aboy sameeyaan marka waxaana fiican yani warshada ama manufacturer ama verifier ka wax ka gadanaysid inuu marka hore uu ahaado verifier haduu verifier yahay faa'iidooyin badan ay adiga ku jiro sida inaad lacagtaada soo ceshin kartid inaad dacwadi kartid ninkan yani inuu amaanada yani waxa ninkan ka gadanaysid inuu yahay nin amaana waxa ka fiiri kartid aniga waxa ku leeyahay marka ugu horeysa meel kale ha fiirin ninkan yani shirkadiisa iyo qaab dhismeedkiisa wixiisa qalabkiisa tayadiisa fiirin hadii ninkan waxyaabaha uu qiimihiisa xitaa fiirin kaliya waxa ku qiimaysaa verifier calaamada verifier ka guys ee shirkadda Alibaba waxay ku bixisaa lacag malaayiin dollar nin malaayiin dollar ay calaamadan ku soo gatay ma laga yaabo in uu yani waxyaabo yar $100 iyo $500 adiga leedahay inuu hunguriyo ma uu hunguriyo ka sababtoo ah processka lacag bixinta ayaa waxay u haystaa ninkan waxa la Alibaba ayuu haystaa bangi Alibaba ayuu lacagta looga shubaa macna ma fahanteen